gabadhan Soomaalida waxaa jir dilay ICE waa gabar ku dhalatay Mareykan St Paul Minnesota magaceeda Nasra Axmed ayaa la yiraahdaa waa 23 sano jir dhowr beri ka hor January 17 2026 ayadoo gurigeeda parkingkeeda marayso barag ICE ka hor yimid way istaajiyeen sharcigeeda ay weydiiyeen ay dhigeeda la soo baxday intee caayeen racial profiling ku suubiyeen ee aflagaadeeyeen ee isugu tageen dhulka ay xog ku dhigeen weydkeedu waa 114 pounds ay sheegtay marka dhaawac ayaa ka jir shamiitada inta dul dhigeen ee isugu tageen rag waaweyn oo xoogan ee xirteen ee detention centerkooda u qaateen waa xirteen laba beri ayaa halkaas ku hayn dhaawac ayaa weynaaday isbitaal ayaa la sii jiifiyay hadana kabacdi ICE laba beri kabacdi way soo daayeen ayagoo ku eedeen in gabadhan wax eeda maxkamad la geenin dambi loo waayay familkeedii iyo markay doodeen kabacdi la soo daayay marka dhaawaceedii ayaa weli ku yaala sad u jeedaan gabadhan dhibka geystay kaliya waxa waaye waa Soomaali way xijaabneed waa Muslim ICE marka waxay ku cadeynaysaa inay target gareynayso racial profiling ku subinayso harassment iyo killing iyo torture ay ku sameynayso dadka Soomaalida ee goob ku nool Minnesota marka gabadhan baad ku dhacdo Mareykan ayadoo ku dhalatay bal imagine dadka kale marka ciyaarta ICE waxay yihiin hadda waxay u soo dhigtaan dadka inay jir dilaan hatta dilaan hala taxadaro hana la iska ilaaliyo murankooda ka fogaada bal ya dib idin geysan raga waa rag careysan oo dadka dilayo Soomaalidana target gareenayo qaasatan Nasra Axmed waxay ku sameeyeen amaantan qof walba way ku sameyn karaan insha Allah gabadhan waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u booqadayo waxaan sidoo kale janaayadii familkeedaba inay hay'adda ICE ee cunsuriyiinta ah ay soo gareyso maxkamad la aado way kareynaysaa xaq badan oo fiicanna way helaysaa dhammaan Soomaalida Mareykan ku nool xalli adag oo xun ayaan ku jirnaa ee balaan is ilaalino insha Allah